السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا داوداشينا قيمها له ee ku xiran VIP cajiib waa tahay maanta waxaan soo gudbinayaa barnaamij aad u qiimo badan oo ku saabsan sooyaalka Soomaalida iyo asalkooda iyo taariikhda ka aasan ee Soomaalida waa tahay barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa xalqadeena ugu horeysay ee ku saabsan Soomaalida iyo taariikhdooda qarsoon waa tahay waxaana ku soo qaadan doonaa maxay aaminsanaayeen diimaha ka hor maxay aaminsanaayeen Soomaalida mise maxay haysay waa tahay iyo wax waliba oo sir ah oo ka qarsoon isla markaasna barnaamijka ugu horeeyay ee baxa ayuu noqonaya waa tahay barnaamijkan waxaan ku fiirin doonaa markaan bal Soomaalida dadka Soomaalida la yiraahdo wada taariikh badan adduunka oo ka qoray misna taariikhdooda insan aqoonin ayaga laftirkooda in badanna ay aasan yihiin ayna sugayaan inaad adiga daawanaya iyo kan gadaal iga daawan doonaba intaba ay soo daayaan waa tahay waxaan barnaamijkan ugu magac darnay ama uu la magac baxay waxay aaminsanaayeen ama rumaysnaayeen Soomaalida diimihii ka hor waa tahay waxaa jiray dad nool oo isla markaas adduunyada ku nool qaarba si ay u noolaayeen hadba sida oo la socoto waa tahay Soomaalida xilligaas way jirtay waana ku cadeyn doonaa inay jirtay barnaamijka ayaan kaga bogan doontaa waxaa jirtay nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam xilligii diimaha ka hor waxay ahayd intiisan iman Tawreed Injiil iyo Islaam waxay ahaayeen dadka Soomaalida ama dadka Soomaalida aan iraahday dad aaminsan inuu jiro Allah kaliya xaq lagu caabudo oo cid kale aysan jirin waa tahay waxayna ku cadeynaysaa inay Soomaalida ay caabudi jireen Allah weyne oo kaliya in cid kale aysan caabudi jirin waxa Soomaalidii hore ee xigtada isla markaas ahayd waxay ku abtirsan jireen odaygii weynaa ee loo yaqaan Kuush ama Kuush inaad maqashay in badan waa laga yaabaa dhagaha uu ku soo laabtay waa tahay Kuush wuxuu ahaa abtirsiga Soomaalida marka la fiirinayo ama dadka Soomaalida meel lagu tirinayo asalkooda uu ka yimid waxa la yiraahdaa dadka Soomaalida waxay ka soo jeedaan asal ahaan reer Kuush ayaa la yiraahdaa waa tahay waxay aaminsanaayeen oo kaliya weyne oo kaliya inuu jiro ayagoo u yaqaanay magacyada Allah oo kaliya magacyo fara badan oo af Soomaaliga ilaa hadda qaar ay ku jiraan way caabudi jireen waa tahay inkastoo qaabka u kala caabudi jireen ay kala yara gadisnaayeen balse haddana hal Allah oo kaliya ay Soomaalida caabudi jirtay xilliga diimaha ka hor waxay ahaayeen dad jiritaankoodu uu aad u weyn yahay balse taariikhdooda ay aasan tahay adiga laga doonayaa inaad dad cilmi baarto ama aad soo raadiso aniga waqti ayaan galiyay inaan ogaado wax ka ogaado balse hadda waan kuu soo bandhigaya adiga fikirkaad aaminsan tahay qaado oo baar laftirkaaga wax badan ayaad ogaanaysaa taariikhdaadana adiga ku sugaysaa inaad soo saarto ma aha cid kale inay sugayso waa tahay magacyada Allah u yaqaaneen xilligaasi waxay gaarayeen 100 magac oo kamid ayay gaarayeen waa tahay magacyadaasi waxa kamid ah qaar kamid ayaan ku soo qaadanaya 100ka magac ma wada sheegi karno balse qaar kamid ayaan ku soo sheegay ilaa hadda dhagahaaga ay yaqaanaan oo dhamaantood magacyadaasi Allah ay u yaqaaneen xilligaasi Soomaalida ama oo la bixi jireen ilaa haddana jira oo waliba Soomaalida dhexdeeda wali ka dhex jiraan magacyadaasi waxa kamid ah haddii aan nii sheego barbaariye Sharmaarke Guule Madinte Samadoone Hobaal Hooyaal Baal iyo Nadir iyo Weyne Eebe Waaq iyo kuwa kale oo aad u fara badan waa tahay mar waliba waxaad aragtaa oo wali ereyada Soomaaliga iyo aad ka dhex maqashaa sheekooyinka Soomaaliga waxaad aad uga dhex maqashaa ayadoo la oranayo ama la dhahayo urkubaala miyaan ahay in badan Soomaalida waad ka dhex maqashay urkubaala miyaan ahay Sharmaarke macnaha kii aan sharta arkaynin waxaad maqlaysaa oo kaleeto Samadoone kii samada loo doonayay waxaad arkaysaa oo kaleeto magacyadan aadka u fara badan Hobaal aad maqlaysaa Hobaal oo inta badan aad ku maqashaan ayadana markii la tirinayo gabayga ama murtida Soomaalida hooy hobaalay kii loo heesay waa tahay hooyaalay ayaad maqlaysaa waa tahay waxaad arkaysaa sidoo kaleeto ereyga waaq
waxay u yaqaaneen oo soomaalidii hore ay aad u garan jireen waxay tahay inay u samayn jireen wuxuu ahaa ilaahay ay ka baryaan roobka ayuu ahaa soomaalida. waxay samayn jireen soomaalida waxay tuugi jireen kuwooda xoolo dhaqatada ah waa ilaahaas ayay baryi jireen. marka ay baryaan ayaa waxay samayn jireen waxay dhisan jireen astaan ayay u samayn jireen ama taalo ayay u samayn jireen. taaladaas ayay marka waxay ka taagi jireen meel ayay ka taagi jireen. kadib meeshaas ay ka saramarsiinayaan dhulka intiisa kaleeto ayay ka saramarsiin jireen, kor ayay u taagi jireen. marka ay sidaas sameynayaan wax kale kamay wadi jirin soomaalidii horeeto oo xilligaas nololeed xilligii nabilaahi ibraahim ka hor waay waxaan ka sheekeynayno diimaha intay samaawiga aysan imaanin waay. marka waxay samayn jireen halkaas ayay ku tuugi jireen. marka ay baryaan ayaa roobka u imaan jiray ay barwaaqaysan jireen. kadibna sidaas ayay ku qadarin jireen, taala ayay u samayn jireen. marka ilaahaga taalada leh oo samada saari jiro ayay waxay dhihi jireen waatana astaantaadii. waata waxaad ku arkaysaa deegaamo badan oo soomaalida ay degto inaad ku maqasho magaca waaqa ayaad ku maqlaysaa, taasoo micnihiisa tahay inay ka wadi jireen allah subxaana wa tacaala, hal ilaah keliya ayay caabudi jireen. waxaad arkaysaa oo kaleeto qabiilada soomaaliga xataa kuwo waxaa jiray u qaabilsanaa dhinacaas waagaas xilligaas oo jiray oo waxaa jiray dhinaca diinta loo xilsaari jiray oo ilaa hadda laga dhexheli karo soomaalida dhexdeeda iyo kuwo badan oo kaleeto. marka waxaanoo dhan macnaha waxaan uga danlaynaa waxay tahay ummadan soomaaliyeed waxay ahayd ummad jiritaankeedu uu fog yahay, inkasta oo lagu tiriyo ummad inaba taariikhdeeda intii badneyd in la aasay in badanna la qariyay, balse mid waliba wuu baari karaa oo wuu raadin karaa oo uuna soo saari karaa. laakiin waxaa lagaga baahan yahay magacyadan aan kuusoo bandhigayo dhammaantood waxaan jeclahay barnaamijyo qaasa iyo qoraalo qaasa inaan kasoo saaro, islamarkaasina mid walba iyo faahfaahintiisa annagoo soo qaadan doona magac kasta iyo wuxuu ku saabsanaa iyo waxa ay soomaalida markaas inay magacyadaas oo dhan iyo allah u taqaanay ay ku magacaabi jireen ilaa haddana la isticmaalo. oad ku dhex arkayso ereyada soomaaliga, gabayada, murtida ay qaarkood nool yihiin, qaar badanna ay la aasay. laakiin kan wuxuu noqonayaa barnaamijkeeni ugu horeeyey maadaama haatanna aan jeclaystay inaan nii soo koobo. macnaha waxaan kusoo koobaya waxaa weye maxaad ka taqaanaa diimaha ka hor inay soomaalida ay allah keliya caabudi jireen, taasi oona ugu dan leenahay inaad noqotaan bulsho soomaaliyeed oo nool islamarkaasina taariikhdeedii meelay u raasata leh. qof waliba soomaaliya waa ku kala aragtisan doonaan karnaa, waa ku kala fikir doonaan karnaa, laakiin tan waa cilmi baaris. adiga haddaad cilmi u hayso ama wax ka duwan aad hayso waad ila soo xiriiri kartaa, waan isla wadaagayna, diyaar ayaan u ahay inaad wax badan ka ogaato taariikhdaada aasan. in badan oo xooga hayo ayaa laga yaabaa aniga midaan hayn in adigana hayso oo aad raadiso laftirkaaga waxa ku saabsan arrimahan oo kaleeto. balse waxay tahay inaan annaga ahaanteena soomaali aan u kacno taariikhdeena inaan banaanka keeno. qof walba soomaaliya geeyiga soomaaliyeed aad ayuu u ballaaran yahay. dad soomaaliyeed ayaa weli waxa ay ku nool yihiin qaaradda africa ilaa iyo inta loo gaaro waqooyiga africa. aad ayay u daadsan yihiin dadka soomaaliyeed ee reer kuush, saad ayay u daadsan yihiin. in badan oo inaga midana ummado kale ayaa maanta sheegtaa, laakiin markaa midabkooda iyo dhiigooda aragto waxaad is leedahay kaasi waddankaas uu dhashay laakiin waa soomaali ayuu u egay. ma aha waa dadkaagii, laakiin way dhaqan rogmeen, way isbedeleen. noloshana adduunku waa sidaas. maanta qarniyadan annaga hadda aan sheekeynayno kuwa naga dambeeya haddaan annaga taariikh qoran iyo wax qoran aan nooga tegin, sidaas ayaa noqonaynaa laftirkeena. mar ayaan soomaali ahaan jirnaa la leeyahay. marka waxaa waaye ogow mar waliba ummadan inay tahay ummad xadaari ah, ummadda kale ka xadaari dheer. waxaad arkaysaa soomaalida ayagoo cilmi badan lahayn, aqoon badan lahayn, haddana inay ummad badan ay wax dheer yihiin ama ay garaad kale ay dheer yihiin. taasi ma aha wax iska imaada, laakiin waa wax kugu dhex nool aadan ogeyn adiga laftirkaaga. waa tahay ma jeceshahay inaan kuu soo qaadano dhulka soomaaliyeed iyo siduu ahaan jiray iyo meelaha ay jimanka ugu waaweyn adduunka ay ka degan yihiin soomaaliya, halkay ayay ku nool yihiin, sidee dhulkan iyo jinka ugu weyn adduunka ugu nool yahay dhulka soomaaliyeed. laftirkeeda inaad wax ka ogaato diyaar ma u tahay, mise ma jeceshahay inaad wax ka ogaato laftirkeeda soomaalida iyo xiriir noocee ka dhexeeya farciintii hore.
ma jeceshahay inaad ogaato taariikhda ku aasan dhulkaaga Soomaaliyeed ilaa haddana adiga kaa qarsoon inaad soo saarto aad weyn meelo badan oo Soomaalidu ka mid ah haddaad rabto inaad wax ka ogaato anigoo Ilka Casa intii karankeyga waa nila socodsiinaya barnaamijkan iyo barnaamij lamid inta ku kulmi doono waa Ilka Casa leh saxaabteeda qaaliga Ramadaan mubaarak insha Allah barnaamijyo kale qiimo badan naga fisha adayaan salaamaya